kulanti aboon daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka SBS xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho warka intuu socdo anigu Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doona ayaa idin la socodsiinaya daawadayaal qodobada warka aad ku daawan doontaan hadduu ay baraali ka noqdo daawadayaal waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo hoteelada magaalada Muqdisho iyo waliba shirkadaha dalxiiska faray in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isdiiwaan geliyaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo xilka qaadis ku sameeyay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada kuwa kalena magacaabay xiriirlaaliyaha guud ee qaranka oo furay dooda wadaaga lagu sameeyo qorshahooleedka xafiiska xiriirlaalinta 2022-2024 maamulka gobolka Banaadir oo muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay gurigiisa oo muddo 30 sano laga heystay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu ay baraali ka noqdo daawadayaal xiriirlaaliyaha guud ee qaranka ayaa maanta magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ka furay dooda wadaag looga arinsanayo qorshahooleedka 2022-2024 xafiiska xiriirlaalinta warkan aan oo dhameystirto wariyaheenna Ismahaan Cabdikaafi Guuleed Carawelo xiriirlaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daafuray dood wadaag looga arinsanayo qorshahooleedka xafiiska sanadan 2020 ilaa 2024 sharciyaqaano Soomaali ah oo ka kala socday hay'adaha wada shaqayntu ka dhaxayso xiriirlaalinta garsoorka wasaaradda cadaaladda booliiska iyo daneeyayaasha xagga sharciga ka taageera dalka ayaana goobjoog ahaa xiriirlaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud oo fariintan ka hadlayay ayaa sheegay in intuu xafiiska joogay uu ka shaqeynayay istiraatiijiyadda hawsha shaqo ee xafiiskiisa xafiiskayga wuxuu bilowgiiba ku dadaalay labada bilood u dambeysay in strategic plan-kan uu dhamaado maxaa yeelay tallaabo lama qaadi karo haddii uusan xafiiska uusan lahayn strategic plan oo dadka la rabo inay xafiiska ka shaqeeyaan meesha u socdaan iyo visionka iyo himilooyinka iyo yoolasha la rabo in la gaaro lama gaari karo haddii uusan jirin strategic plan-kaas xiriirlaaliyaha ayaa ka soo qaybgalayaasha ka codsaday inay talooyin fiican ku darsaan istiraatiijiyadda soo diyaarinta xafiiska xiriirlaalinta qaranka waxaana dhammaan ka soo qaybgalayaasha halkan fadhiya ka rajaynayaa in ay strategic plan-kaas ay wax ku kordhiyaan waxay u arkayaan oo talo fiican ah ay ku daraan maxaa yeelay dadka hadda halkan fadhiya waa dadka daneynaya strategic plan-kaas waxaana rajaynayaa in dhammaantiin si fiican uga wada qayb qaadataan kuna kordhisaan wixii ay u arkaysaan inay ka maqan yihiin wixii ay u aragtaan inay sida u samaysan yihiin u baahan in laga bedelo waxaan rajaynayaa intaa fadhidaan inaa wax badan aad ku guuleysan doontaan Ismahaan Cabdikaafi Guuleed SBS Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay gurigooda oo ka maqnaa in ka badan muddo 30 sano ah kaasi oo si sharci darro ah looga degnaa balse maanta oo nasiib u yeeshay inuu furihii gurigiisa uu gacanta ku dhigo warkan aynoo dhameystiray wariyaheenna Shaasha oo arrimahaasi la socday 30 sano ayuu ka maqnaa gacanta ciddii milkiyadiisa lahayd waxaana manafacsanayay muwaadiniin aan milkiyadiisa lahayn waanu ku faraxsanahay maanta gurigeena lagu soo celiyay gacanteena 30 sano ka bacdina khayr Allah siiyo dhamaantood guul ilaahay maanta ayuu gurigan dib ugu soo laabtay milkiyada muwaadinkii lahaa oo muddo ku mashquulsanaa muran maxkamad iyo madax dhaqameedyo badan oo muddooyin ka doodayay milkiyada gurigan oo Muqdisho uga yaal mid ka mid ah xaafadaha degmada Xamar Jajab madaxda Muqdisho oo madaxoodii uu horkacayo ayaa milkiyada gurigan dib ugu soo celiyay muwaadinkii lahaa
waxaana furayaasha guriga midigta loo geliyey cali xasan oo wakiil ka ah cabdiraxmaan alboosi oo ah muwaadin ka leh milkiyadda gurigan. milkilihii gurigaas ama dadkii milkida u lahaa ee ruuxii ay u wakiisheen inaan ku wareejiyo ayaan gacanta u saarnay midigta ah furihii guriga. duqa muqdisho ayaa u sheegay muwaadiniinta magaalada in maamulka uusan marnaba aqbalayn in guryo lagu kala haysto muqdisho. dadweynaha Soomaaliyeed ee dhibanayaasha u ah dadka dulmiga u bareeray ee hantidooda haysta soo gaarsiiyeen hay'adaha garsoorka iyo hay'adaha amniga iyo maamulada jira wixii tabasho ah ama yaani ay tabayaan oo in wax laga haysta haddii ay caddaato inay waxooda leeyihiin waa lagu wareejinayaa. dawladda Soomaaliya ayaa qaadatay mas'uuliyaddeeda taas. maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyaddiisa ayay ka mid tahay inuu qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah amaba aan ahayn muwaadin Soomaaliyeed laakiin halkan xaq u leh inuu wixiisa uu helo xurna u noqdo. mas'uuliyaddan ay ka mid tahay waana xaqiijinaynaa haddii Alle idmo arrintaas. marka laga tago gurigan muqdisho waxa ay weli marti gelinaysaa muwaadiniin aan tiro lahayn oo milkiyadda guryo ay lahaayeen u wareegaya maxkamadaha madal dhaqameedyada iyo maamulada ay hoos joogaan. waxaana maamulka muqdisho uu u muuqanayaa mid muwaadiniin badan midigta u gelin doona milkiyadda guryahoodii oo madaafiic iyo manasheegad looga mamnuucay. cabdishakuur shasha SBS muqdisho. wasiirka wasaaradda maaliyadda boostada iyo isgaarsiinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay waxqabadka wasaaraddaasi. warkan mar kale ha noo dhameystiro wariyayna Maxamed Deeqsi oo ku sugan magaalada Baydhabo. wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Maxamed Nuur Sheekh Cadde ayaa TV-ga SBS wareysi siiyay oo ka hadlay waxqabadka wasaaradda boostada koonfur galbeed. waxaana wasiirka uu sheegay in ay wada shaqayn la leeyihiin wasaaradda boostada dowladda federaalka Soomaaliya. marka aan xilka la wareegaynay waxay 6 Maarso 2019 waxaa la joogaa muddo 12 bilood harsan. xafiis ayaa nagu soo ziyaaday. xafiis ma lahayn, xafiis kuma badan ma lahayn, xafiis bisi ku shaqeynaysi. xafiis ku soo ziyaaday. qalab xafiis ku soo ziyaaday. waxaa kaloo wasaaradda ku guuleysatay inay shaqaale tababar siiso. wasaaradda gudaheeda ama wasaaradda kale u raadiso. wasaaradda waxay ku guuleysatay inay shirar inta ku marti qaado. shirka wasaaradaha isgaarsiinta iyo boosto isgaarsiinta koonfur galbeed wasaaradda iyo dhammaan waddan dalka idil maca federaalka inay ku marti qaadi ku guuleysatay wasaaradda. wasaaradda waxay guuleysatay shaqaale cusub ay qorato oo wixii ku hadda joogi jireen hal shaqaale bas ay joogi jirto ay ku dar shaqaale cusub ay qorato. waxay wasaaradda ku guuleysatay inay dhammaan ay diiwaan geliso wixii marka oo ay ku leedahay dalka ay waagi hore deganaan jirtay oo boos isgaarsiinta ah gacan burburka iyo maaragtay shaqay ka faa'iideysto. wasaaradda waxay kale ku guuleysatay inay keento waxa la yidhaahdo domain name oo internet ku xiran oo gacanta labaad ama heerka labaad ku shaqeynayaan wasaaradaha iyo dhammaan laamaha dawliga oo hostelkiisa wato oo si panelkiisa la socdo oo webmail laga abuuri karo. dhanka kalena wasiirka ayaa baaq u diray bulshada isticmaasha baraha bulshada. dhammaan waxaan u baaqan lahay inay taageeraan isgaarsiinta inay bartaan ICT-ga. maxaa leeyahay cilmiga waxa u socdaa ummadda waxay socotaa technology nolosha waxa isku bedeshay technology taas markii sheeg inaan u baaqi lahay waxaan u baaqi lahay dadka isticmaalaya social media inay anshax wanaagsan u isticmaalaan sida isugu dhacay conflicti ku abuurin sida zaman anshax xumada oo maadiinta iyo islaamka iyo dhaqanka suuba Soomaaliya aysan aqoonin in laga ilaaliyo facebookyada iyo dhammaan social media si wanaagsan loo isticmaalo. dhanka loo isticmaalin dhan wanaagsan loo isticmaalo. Maxamed Istaaqdeerow telefishinka caalamiga SBS TV magaalada
munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu soo dhaweynayo kooxda Janaamkee oo kamid ah fanaaniinta magaalada Baydhabo ayaa xal lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya kuwaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya warkan aan oo dhameystiray wariyaheena Shaafici Shaacir munaasibadan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayo kooxda Janaamkee oo ka yimid magaalada Baydhabo ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Munaasibadan soo dhaweynta ayaa waxaa soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir waxaana goobta soo dhaweynta joogay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geedi, gudoomiyaha gobolka Banaadir labadiisa gudoomiye ku xigeen, gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir, qaar kamid ah fanaaniinta magaalada Muqdisho. ugu horeyntii waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Marwo Basma Caamir Shakeeti waxa ayna sheegtay in fanku uu qayb weyn ka yahay horumarka dalka. sidoo kalena waxay soo dhaweysay kooxda Janaamkee ee soo dhaweynta loo sameeyay dhammaan fanaaniinta ka soo qayb gashay munaasabadan quruxda badan oo ugu talagalay duqa magaalada Muqdisho casho sharafta. waxaan idin leenahay caasimaddiini dalka hooyo ku soo dhawaada aad iyo aad aan idinku soo dhaweyneynaa. mar walba wuxuu u taagan tahay caasimadda inay martigeliso qof kasto muwaadin Soomaaliyeed caasimadiisa inay tahay qof kasto dalka iyo dibadda wixii ka yimaadaan inaan ku soo dhaweyno aad iyo aad ay sharaf ay noo tahay. Golaha kale waxaa goobta ka hadlay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geedi waxa uu baaq u diray bulshada qaybaheeda kala duwan isagoo oo kula dardaarmay in laga qayb qaato horumarka dalka. Cali Maxamed Geedi siyaasadda siba u arkaa idinkuna waxa laga yaabaa inaad siyaabo kale u aragtaan iyo siyaasiyiin kale oo farabadan marka anigu waxaan dhihi lahaa saaxiibada siyaasiyiinta ee u diyaar garoobaya tartanka madaxtinimada dalka inay fahmaan habeenna loogu celiyo igu dayo walaal ha igu daydaan aniga. waxaan sidaa u leeyahay waxaan ka digayaa in qalbiga laga jabiyo shacbiga Soomaaliyeed oo u ooman una baahan dawladnimo iyo xasilooni iyo xayaato sharaf leh inay ku noolaadaan sida asaagooda beesha caalamka. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda ayaa munaasabada soo xiray isagoo oo sheegay in ay muhiim tahay in mar walba maamulka gobolka Banaadir uu u taagan yahay horumarka caasimadda. ujeedada loo dhimanayo maxay tahay? ujeedada loo dhimanayo waxay tahay in dhallaankeenu ay dhaxlaan wadan nabad ah, ay dhaxlaan aqoon, ay dhaxlaan caafimaad, ay dhaxlaan biyo nadiif ah. soo ma geeyaan waxay xaq u leeyihiin oo ay geeyaan inay dal nabad ah iyo dal nadiif ah iyo dhaaf nadiif ah iyo waxbarasho u qalanta inay helaan ay xaq u leeyihiin. kuwa la rabo inay gaarsiiyaan ayaa inaga ah. aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa fanaaniinta kala gidisan ee caawa nagala soo qayb galay munaasabadan aan ku maamuusaynay kooxda reer Baydhabo oo magaalada Muqdisho deeqda u keentay. runtii reer Baydhabo ma ahidin martino ma ahidin balse waxaa tihiin walaalo hadiyad qaali ah noo keenay. waa idinka guddoonay hadiyadii waxaan rajaynayaa oo aan idinka Ilaahay idinku bedeli doonaa magaaladan Muqdisho oo aan ka soo qaadno nalkan aan ka soo qaadno oo aan surno magaalada Baydhabo. Shaafici Cabdinaasir Maxamed Shaafici Shaacir SBS Muqdisho. xisbiga SAMU oo kamid ah xisbiyada ka jira dalka ayaa taageeray sharciga doorashooyinka ee dhawaan oo ansixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. warkan hanoo dhameystiray wariyeena Muniir Kaskey. kulan si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, taageerayaasha iyo xubnaha golaha dhexe ee SAMU ayaa maanta ka dhacay xarunta xisbiga SAMU.
kulankan oo ahaa mid lagu taageerayo ansixintii dhowaan uu ansixiyey madaxweyne Farmaajo sharciga doorashooyinka dalka xubnihii halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay dhammaantood muujiyeen sida ay u taageersan yihiin tallaabadaasi uu qaaday madaxweyne Farmaajo. Cabdulqaadir Cabdulaahi Xasan oo ka mid ah xisbiga SAMU ayaa soo dhaweeyay saxiixa sharciga doorashooyinka qaranka ee madaxweyne Farmaajo. anigoo ku hadlaya magaca xisbiga waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa oo aad ugu faraxsannahay nidaamka ansixintii la ansixiyey nidaamkii doorashooyinka. waxaa dhacay waddanka wuxuu ku jiray walaahow badan, waxaa ku jiray shacabka Soomaaliyeed wax ay in badan u dhagataagayeen ayay ahayd maadaama uu ansixiyey madaxweynaha. aad iyo aad u soo dhaweynaynaa. marka ugu horeysa waxaan ugu mahadinaynaa Ilaahay, marka labaad waxaan ku bogaadinaynaa madaxda dalka iyo labada gole sida ay u baasgareeyeen ama u sameeyeen. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xisbiyada Soomaaliyeed maadaama wixii iyo sababihii loo aas-aasay xisbiyada ay ahaayeen in doorashooyin la sameeyo, in loo diyaar garoobo qaabkii iyo nidaamkii doorashadaas ay u dhici lahayd. dhinaca kale qaar ka mid ah xubno ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga ayaa dhammaantood soo dhaweeyay go'aanka Farmaajo ee sharciga doorashooyinka la xiriira. maanta waxaan ku kulannay shirkan baaxadda leh inaan uga hadalno aan u hambaliyeyno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan ansixiyey hidda sharciyeedka doorashooyinka qaranka. waa u hambaliyeynaynaa mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad. xisbiga sinaanta ammaanka midnimo ololeynta wuxuu taabagelinayaa waxyaabo badan oo horumar leh, hor u kac leh haddii Ilaahay raalli ka noqdo. aniga waxaan ku faraxsanahay horta in oo macnaha oon doorashooyinkan la ansixiyey aad iyo aan soo dhaweynaynaa 100%. may kala jiree xisbiyada intooda badan xisbiga sinaanta ammaanka midnimo ololeynta oo kaalinta 8 oo ka jiro. shirkan ujeedooyinka ugu weyn oo loo fariistay waxaa ka mid ah inaan ansixintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ansixiyey oo saxiixay sharciga doorashooyinka. marka waxaan soo dhaweynaynaa sharciga doorashooyinka inuu ansixiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa. Ilaahay haddii shalay la dhihi jiray ma qabsoomi karto doorashooyinka, haddii la dhihi jiray in maxaa la yiraahdaa ma loo baahna in la tago one man one vote, maanta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynihii wuxuu ansixiyey shuruudihii oo looga doorashooyinka. marka waxaana lagu baahan yahay haddaanu nahay axsaabta Soomaaliyeed ama axsaabta siyaasadeed ee Soomaaliya inaan maxaa la yiraahdaa dibadaha u taagno jiritaanka dalka, waayo wadanku wuxuu ku socon karaa, ku horumari karaa, lagu heli karaa cadaalad in micnaha loo aado doorasho. ugu dambeyn gudoomiyaha xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimada ololeynta ee SAMU Ugaas Awees Xuseen Huneera ayaa ugu baaqay xisbiyada kale inay u diyaar garoobaan doorashada dalka. waxaa jiray waxyaabo badanaaba bulshada Soomaaliyeed shaki ka qabeen dhinaca looga gudbaayo 4.5 loona gudbaayo in Soomaali ay gaarto in nin walbaba codkiisa bixiyo ama shacabka awoodda ku wareegto. in badan ayaa laga qabay shaki, laakiin shakigaas waxaa baabi'iyey dowladda baabi'isay kadib markii madaxweynaha uu saxiixay sharciga doorashooyinka uu saxiixay uuna ku baaqay uu yiri in laga bilaabo saacadan dalka u gudbay doorasho. maadaama sidaas asku dhawaaqay saxiixna wuu saxiixay isla markaana asku dhawaaqay inuu dalka u gudbay
maxaa la yidhaahdaa doorasho sidaas ayaan ku jirnaan aaminsannahay inaan ku jirno marxalad doorasho marka dadka qabay shakiga qabay waxaan ka codsanaynaa ama u sheegaynaa inay shakiga ka baxaan ogaadaan dalka inuu u gudbay marxalad doorasho xisbiyada iyo dadweynaha Soomaaliyeedna loo baahan yahay inay isku diyaar garoowaan howshaas sida loo miro dhalin lahaa. Munir Muuse Bujeeti, Munir Kaskey, SBS Muqdisho. kulan ay wada qaateen guddiga doorashooyinka qaranka iyo baarlamaanka Hirshabelle ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Jowhar. warkan waxa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyaheena Nuur Maxamed Macalin. kulan ay isugu yimaadeen guddiga doorashooyinka qaranka baarlamaanka Hirshabelle iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. kulankan ayaa looga hadlayay qaabka ay u dhici doonto doorasho qof iyo cod ah oo la rajaynayo inay dhacdo sanadka soo socda. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashada 2020-2021. yiraahdo haloo kala qaybiyo kuraasti iyo deegaan doorashadoodii haddana farbood statekiya ku jiray oo arkay deegaan doorasho iyo kuraasta la haysto hala isku sameeyo oo arkayno weli farboodtaasku waa ku jiraan. waxaa kale oo aan arkayna nidaamkan xisbiyada oo 70 xoogaa sii mariyo 100 inay gaaraan waaba sii jeclaan lahayn oo 100 musharax ay ka soo baxaan sidaa kale gudoomiyuhu uu sheegayay doorashooyinka 10 in laga soo reebo waa laga yaabaa marka hore waxaa la isku diiwaangelinayaa haddii 10 ay ka soo harayso. khadiijo cosoble cali oo ah xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ka hadashay habraacyada loo wajahayo doorashada qaranka. siyaasiyiinta laga rabaa idin xataa ka mid tihiin sida la isugu soo dhaweyn lahaa ummadan Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed la isugu soo dhaweyn lahaa waajibna saaran waaye maxaa yeelay doorashada rabnaa haddaan doorashada inaan rabno meel naga taalo waxa alla wixii hortaagan taas oo kale uga shaqayn karnaa yaa wax ka geysan kar haddaan aniga wax ka geysan kar inaan raadisiin inaan ku mashquulshiin in xalkii la raadiyo laakiin aanan ku joogsanin kaliya aanan fadhinin problemka agtiisa aanan fadhinin markii problemku is xalinayo. علي عبد الله حسين علي جودلاب مدحويني كحجين كمامل كهيرشبيلة أيها وجودن بين كهذا كلن كان ولا على اسكو ضايل ووقت اللي جريد مسؤول رجلا يعني سيدا ضد داليسين وكم هالسنتين يعني دلنا هاي وعن ربا أرنتا دور شوينكا هذه هذا مسؤول دويني يعني دعوه دور الشغف في عصر رالي أيانا كنا هاي inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo muwaadin kasta ee Soomaaliyeed cid uu rabo uu codeeyo raalli aan ka nahay waana soo dhaweynaynaa. sharciga doorashooyinka ay baasiyeen ama meel mariyeen labada gole ee dawladda federaalka golaha baarlamaanka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ay ansixiyeen aan soo dhaweynaynaa ee madaxweynaha dalkuna oo saxiixay. نور محمد معلم SBS TV جوهر. inta ayaan ku soo gabagabeynayna warkii telefishinka SBS xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. warka inta socday waxaad la socodsiinay anigoo Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doona. warkan kiis xiginta ku wada kulmi doona sida ay nabadgeliyo.